waa xilli galab ah jawigana aad ayuu u degan yahay waxaan ku suganahay mid ka mid ah goobaha loo dumaashaa tago ee ku yaala magaalada Muqdisho waxaa ku sugan dad aad u badan oo isugu jira dhalinyaro rag iyo haweenba caruur iyo dad waaweyn waxa ay daawanayaan hirarka biyaha ee imaanaya xeebta iyo baashaalka dhalinyarada ku sugan xeebta waxaa jira qaar ka mid ah dadkaas oo madadaalooyin ku soo bandhiga isla xeebtan waana mid ay jeclaystaan dadka u soo dumaashaa taga halkan muddo ka badan 20 sano Soomaaliya ma helin dawlad xoogan waxaana dalka iyo dadkuba ay ka dhaxleen marxalado kala duwan guryaha iyo wadooyinka kaliya ma burburin ee waxa hoos u dhacay dhammaan adeegyadii bulshada oo ay qayb ka tahay goobaha nasiinada ee magaalo kasta laakiin rajada dib ugu soo laabashada dawladnimada Soomaaliya waxay ka muuqataa dib u soo noolaanshaha goobaha noocaan ah xeebtan oo magac ahaan leh Lido waxa ay ka mid tahay meelaha ay ugu jecel yihiin bulshada Soomaalida waxa ay soo martay marxalado kala duwan oo ay ka dhaxashay dawlad la'aanta dhawaan ayayna ahayd markii koox argagixiso ah ay weerartay ay ku nafwaayeen tiro ka badan 30 oo bulshada rayidka ah intii aan ku guda jiray hawshan waxaan la kulmay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Atooraha xeebta Lido waxa uu ka mid yahay dadka halkan ku soo bandhiga waxyaabaha madadaalada ah bulshada halkan timaadana aad ayay u yaqaanaan waxayna ka helaan waxyaabaha uu halkan ku soo bandhigo waxaa jira koox kale oo isaga la sameeyay waxyaabaha madadaalada ah balse xilligan kuma sugnayn goobta isaga ayaana sameynaya qaar ka mid ah waxyaabihii madadaalada inta kadib Atooraha ayaan wax ka weydiiyay waxa ay yihiin waxa uu halkan ku sameeyo Cusmaan Salaataan waxa sameeyaa filmaan ayaa sameeyaa iyo madadaalo bulshada sameeyaa waxa uu sameeyaa qaab macnaha waxyaabo wax macnaha oo la barto waay samsay macnaha waxyaabahaas agshimo sameeyaa wallahi way badiyin waxa ila sameeyo ana macnaha macallin oo wiilish dhalinyaro badan ayaa jira oo halkan yimaada maalin walba oo dhamaadka isbuuca ah ama maalinta jimcaha waxay ii sharaxeen ujeedka imaatinkooda halkan waa Cabdinaafi Ibraahim Cali waxaan ka soo doonay inaan maanta ku baashaalo badda aan ku dabaasho ay ku jimceysto maalin jimcaha la imaanaa maada inaad jimcaha maqana aan ku aad maqana firfircooniyo waxaan ka helaa maalin isbuuciidan waxa waa mashquul aliya Soomaaliya waxa la barnaa maalin jimcaha markii aan maqana ralkas aan sameeyo maqana maskaxda iyo jirka aan furo aan u imaada hadi jeerbo jimcaha walba waxaan aad inta ugu maadaa inaan ku nasto Lido Beach waa meel kamid ah meelaha aan niideed ku nasto marka waxaad ugu faraxsanahay mar walba marka aan fursadahay inaan inta imaada ku nasto because of relaxing waxa ku fiican tahay inaan ku nasto waxa ku fiican tahay inaan waqtiga marka haysan oo kale aad ku lumisid aad baa ugu faraxsanahay maashaha Lido mar walba jimcaha walbana leeyma waayo waa Lido Beach ee ka shidan tahay minazada okay wallahi waxyaabo badan ka faa'iido dabaal ka faa'iido buuna ka faa'iido waxyaabo badan farxad ka faa'iido waxyaabo badan ka faa'iido kan ajid soo koobi kan Allah iid hal ma sama halka ma jimcaha oo iiday ma sana saraaxisana mar buuna iska dhilna asxaabteena badan wiilkana kii ma soo dhaweeyna jaalaa wiilka sidoo kale oo ma jeclahay yaa abadana wallahi akhi abadana tawshaq fanana buuna ugu maana bada ugu maana xataa ku soo dhaweeyna waa kii qaalib caasimada oo si weyn u burburtay meelaha kale oo ay ka soo kabanayso waxa ka mid ah wadooyinka waxaan maray isgoosiyada Jubba wadada Makka al-Mukarrama Sayidka Dabka kilometer 4 kilometer 5 iyo Banaadir welina waxaa jira kuwa inta ka badan oo markaad aragto dib u go'anayso wixii ku dhacay caasimada oo ka mid ahayd caasimadaha ugu wanaagsan qaaradda Afrika meelaha qaar casirkii ayaa laga caraabaa balse wadooyinkan ayaa ah kuwa habeen iyo maalin si isku mid ah looga ganacsado waxaa jira ganacsiyo waaweyn oo shaqeeya waxa inta dheer ganacsiyada yaryarka ah ee tuban hareeraha wadooyinka inta badan Sharkey waa wiil dhalinyaro ah waxa uu ka mid yahay dhalinyarada dalka joogay muddadii ay socdeen dagaalkii sokeeye ee dalka waxaan la kulmay isagoo ku sugan goobtiisa ganacsi waxa uu si qiirad leh uga sheekeeyay anfaca uu ku haysto dalkiisa magacaygan waxa waa Sharkey Axmed Cumar ciyaartoy oo markaan hay waa inta soo badishtay inaan tahriibo isku day dhowr mar dhalinyaro badan iyo dad badan awaawulay inay tahriibo aan aado laakiin danteeda marna kuma fikirna aado hadda hooyo kamid ah aabba kamid ah marna kuma fikirna tahriib aado sababta igu kaliftay wadanka barwaaqo inaan ka tago wadan kale inaan tago oo barwaaqadiisa aan la qaybsado wadankan barwaaqadiisa aan ka noolaado aan kale ugu dheeraado sidaas darteed ugu qasbtay wadanka joog fiiri wadankan barwaaqada taa ilaahay ku dharshay di xaliimkan Sacuudiga riyaalina ku xawaa Sacuudi maalinta qaadid 200 riyaal waxba kugu filna koronto kahraba ku dhiba saddex mar taariibi samta khajara allahad abu arish dabya maxel bish darab dayf meel akasina khariida ku taal jid male runta ku sheey sabkiyo waxyaabaha supermarket lagu gado
oo ka mid ah waxyaabahan oo fruitiska ah calinaaska tufaaxa liin shukumaan istiraasho kashab maxaa ku soo haray malab malmalaato fruitis waxaan ku helaa wax walba oo qofka bini'aadinka oo dhiirigelinay timira ka mid ah cabitaan maalinta ana yaabo ilaahay mahadiis alxamdulilah rabbil caalamiin waxaa jira caqabado badan oo weli dalka ku dambeeya kuwa aan ogolaanayn inaad dhaqdhaqaaq badan u hesho samaynta waxyaabaha ka hadlaya isbeddelka marxaladaha dalka inkastoo ay sii tirtirmayaan waxyaabihii laga dhaxlay dowlad la'aanta. cabdifitaax axmed cali shino, TV-ga Jubbaland, magaalada Muqdisho.